kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiin baa khiyaarta hawada nagala socota ay halkani waa Ilaysa TV oo alaabaan idin ka soo gudbino barnaamijyo kala duwan caawisnimadan caawa barnaamijyada Ilaysa TV aad ku daawan doontaan waxa kamid ah wafdi ballaaran oo ka socda jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya oo ku sugan magaalada Dhagaxbuur ee xarunta gobolka Jarareed oo maanta shirweyne ku qabtay magaaladaasi qayb kamid ah xadgudubyadii arxan darrada ahaa ee ka dhacay jeelka weyn ee jeel Ogaadeen iyo shirkii taliyaha qaybta gorgor ee ciidamada qalabka sida ee Jowxo taliyaha liyu booliska iyo waliba gudoomiyaha degmada ama tuulada Malqaqa ay ku qabteen deegaankaasi Malqaqa khudbadihii ay ka jeediyeen kaalmihii suugaanta kolba inta waqti weyn oo saamaxo ayaan iyagana idin soo gudbin doonaa marka hore se ku soo dhawaada warkii caalamka dadkii hore ugu dhaqnaa aaga ceelasha shidaalka jeexdimeed ayaa waxa cabasho xoogan ay ka muujiyeen gabadfallo iyo xadgudubyo joogto ah oo isugu jira xasuuqa xarig wadareed iyo waliba barakicin ay 12 sano ee la soo dhaafay ciidamada Itoobiya ku hayeen shacabka ku dhaqnaa aaga ceelasha shidaalka ee jeexdimeed oo gabi ahaanba haatan ka barakacay dhulkooda ayaa waxa ay sheegeen in dhibaatada iyo xadgudubyadii soo gaaray muddadii 12 sano ahayd ee la soo dhaafay loo baahan yahay in loo helo cadaalad si loola xisaabtamo dhagar qabayaasha iyo dambiilayaashii dadkaasi xasuuqa arxan darrada u geystay mid kamid ah muwaadiniintii hore oo ugu dhaqnaan jiray aaga ceelasha shidaalka jeexdimeed oo la hadlay ayaan le xasan oo isagu kamid ah dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda shacabka Soomaalida Ogaadeniya ayaa waxa uu sheegay in gabadfallada iyo gumaadkii ay kala kulmeen ciidamada Itoobiya uu yahay mid aan gabi ahaanba waqti xaadirkan la soo koobi karin xisaab ahaan waxa uu sheegay odaygu in loo baahan yahay in la helo cadaalad si loola xisaabtamo kuwii xasuuqa u geystay shacabka Soomaaliyeed deegaamadoodana ka barakiciyay iyaga oo waliba isticmaalaya awood xad dhaaf ah waxaana uu sheegay in halkaasi ay ku waayeen shacabka ku dhaqan deegaamada degmooyinka Shilaabo iyo Dheebaweyn in ka badan 20,000 oo muwaadiniin ah kuwaasi oo aanay jirin wax dambi ah oo ay galeen waxa uu ka codsaday muwaadinkani madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Ogaadeniya in la helo cadaalad si loola xisaabtamo dambiilayaashii geystay gabadfallada kuwaasi oo sheegay in ay shacabka ku dhex jiraan in badan oo kamid ah waxana odaygani uu ugu baaqay guud ahaan ba shacabka Soomaalida Ogaadeniya inay u istaagaan xaqqa iyo waliba xuquuqda ay u leeyihiin in ay ku dagaalamaan xorriyadooda si ay u helaan nolol la mid ah tan caadiga ah ee bini aadamku ku nool yahay muwaadinkani oo ku sugan tuulada ama deegaanka Aftol ee duleedka degmada Shilaabo ayaa hadaladiisii xanuunka badnaa waxa kamid ahaa qalqalooc sax iyo hadii halkaas aan u qax ariici xidin iyo deegaanka u lahay sax waa laga xori sax waa laga xori abaartii iyo aburuntii sax uu kala dar dadna ma hayn dunyada ma hayn باقر واسيده waxaan ma faray hada caalamka dhan laga daawanay waxaan faray hay'adaha mataqana xuquuqsanka iyo dawladda Itoobiya iyo dawladda deegaanka Soomaalida maybe madaxweynuhu maqlo ku dhigay ka berigi u laakiin yihiin xal xaquuqdii waxaan leeyahay hadii dhulka xaqaani iyo xukuumad iyo wax garasho iyo madaxweyne jiro sax ka qabasho u baahana باقر ka qabasho yaan u baahana sax dad iyo dunyada daawaan u baahana sax ceelkan oo dhisaan u baahana ceelka waa naga burburay sax hadii uu soo galiya geeli waxa ka bahayn sax ayr baa dadka mutayo yaana sax dawladdu waxa noo qabanayso wax allaala wax wal dawladdu waa baahana magaalada Dhagaxbuur ee xarunta gobolka Jarareedna waxa maalinnimadii shalay ahayd gaaray wafdi ballaaran oo uu hogaaminayay hoggaanka qorsheynta iyo cilmi baarista ee jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya mudane Xuseen Nuur
wafdiga jawxo ee gaaray magaalada Dhagaxbuur ayaa banaanka kore ee magaalada waxa kaga hortagay 10,000 oo shacabka magaalada ah kuwaasi oo muujinaya dareenkooda wadaniyadeed iyo sida ay ugu faraxsan yihiin soo booqashada wafdiga jawxo iyagu haatan gudaha wadanka Ogaadeniya ku mari doona safarro ay ku gaala bixinayaan guud ahaanba magaalooyinka waaweyn iyo gobolada dalka shacabka ku dhaqan magaalada Dhagaxbuur ayaa habeenkii xalay ahaa ilaa iyo maanta waxa ay ku guda jiraan sidii ay u soo dhaweyn lahaayeen guud ahaanba mas'uuliyiinta iyo madaxda jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya ee ku sugan magaalada Dhagaxbuur ee xarunta gobolka Jarareed goobta ay degan yihiin wafdiga jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya ayaan habeenkii xalay ahaa laga seexanin waxaana shacabku ay u booqanayeen wafdiga jawxo si raxan ah iyaga oo dhammaantoodba muujinaya dareenkooda farxadda iyo waliba wadaniyada xambaarsan ee ay ku soo dhaweynayaan madaxda jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya shacabka ku dhaqan magaalada Dhagaxbuur ayaa waxa ay sheegeen in wafdigani uu yahay mid wax ka bedelaya guud ahaanba xaaladii gobolka oo muddo dheer dhibaatooyin kala duwan soo maray magaalada Dhagaxbuur ee xarunta gobolka Jarareed oo shir ballaaran maanta uu ku qabtay wafdiga jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya ee uu horkacayo mudane Xuseen Nuur hoggaanka qorsheynta iyo cilmi baarista dib ayaanu idinka soo gudbin doonaa kadib marka uu war ku dhamaado deegaanka Qollaji ee gobolka Faafaneedna waxa booqday maalinimadii shalay ahayd wafdi ballaaran oo ka socday ciidamada qalabka sida ee jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya uu hogaaminayo naftii hore garyar ee taliyaha qaybta gorgor ee ciidamada qalabka sida ee jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya kumanaan kun oo shacabka ku dhaqan xerada barakacayaasha Qollaji ayaa iyagu waxa banaanka ay kaga hortageen wafdigaasi ka socday ciidamada qalabka sida ee jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya uu horkacayay naftii hore garyar kaasi oo guud ahaanba muujiyay dareenka jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya iyo qorshaheeda salka ballaaran ee ay ku doonayso in lagu mideeyo shacabka ku dhaqan gudaha wadanka Ogaadeniya shacabka ku dhaqan xerada barakacayaasha Qollaji oo tira ahaan kor u dhaafaya 380,000 oo u badan dadkii ka soo barakacay gudaha dhulka Oromada iyo deegaamada dhacaxadka labada bulsho ayaa si qiiro iyo wadaniyadii ku jirto waxa ay u soo dhaweeyeen guud ahaanba wafdigaasi ka socday jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya uu horkacayay taliyaha qaybta gorgor waxaana jecelahay bal hadda in aan idin la wadaago qayb ka mid ah dareenkii bulshada ku dhaqan deegaanka Qollaji السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وآية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. ولما يعمل السلام يا تمام أمة الصوماليين ليك استيجبتوا خاصة
ummadan degan magaalada lagu magacaabo Qolladii waan salaamaynaa salaanta muslimiinta barakaysan ahla assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh inta ka dambaysa warkii oo aad kala socoteen Ilaysa TV akhyaarta hawada nagala socotay bal intaasi caawa haynoo joogo markale ayaanu idin leenahay caawaysin waana wanaagsan idin ahaantiin baa akhyaarta hawada nagala socotay magaalada Dhagaxbuur ee xarunta gobolka Jarareed waxa shir weyn maanta ku qabtay wafdiga sare ee ka socda jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya oo haatan iyagu gobolada dalka booqasho rasmi ah ay uga bilaabatay wafdigani ayaa waxa hogaaminaya hogaanka qorsheynta iyo cilmi baarista mudane Xuseen Nuur waxaana xubno ka mas'uuliyiin sare oo ka tirsan golayaasha kala duwan ee jawxo gaar ahaan guddiga fulinta golaha dhexe iyo taliska ciidamada qalabka sida ee jawxo mas'uuliyiin ka socota xarunta dhexe jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya ayaa iyaguna qayb ka wafdigaasi oo haatan kaga biiray magaalada Dhagaxbuur ee xarunta gobolka Jarareed haddaba barnaamijka ay nooga soo diyaariyeen wariyayaasheena la socda wafdigaasi ku sugan magaalada Dhagaxbuur oo maanta iyagu aan loo kala bixin shirkaasi ayaana jeclahay in aan idinku duwo ee daawasho wanaagsan يا وحيلا دي كرنا ياي وبيسيقا وركيسي قريبنا ياي قادري ياي تاحين كدبنا ياي عرقنا قو كيكشين قوينا ياي قبني باو تركي قولي سايي قبني باو تركي قولي سايي يا وحيلا دي كرنا ياي وبيسيقا وركيسي قريبنا ياي قادري ياي تاحين كدبنا ياي عرقنا قو كيكشين قوينا ياي قبني باو تركي قولي سايي قبني باو تركي قولي سايي كما سنان تركادو دياي يسيقي كمبونا قلقلياي حقودي كويال بدن لقوستيو تاريخ ذكريو قرمدا اي قبني باو تركي قولي سايي قبني باو تركي قولي سايي كما
بسم الله الرحمن الرحيم وحان أرقنا جبهة حورينتا أوغادينيا نو تمد مانتا ما شاء الله فرحت يقول يا نو أرقنا إن بدنا واتان سويني الحمد لله رب العالمين إلهي أيانا سو قارتي إلهي أيام هذا إسكالك جيسياشة شوحين بدنا ودنك كسوها الجمي الحمد لله رب العالمين وحنا وسود ويني ناسي كشي لابا وكلك عيل بدن وآدي آدو قيمة بدن أيان وسود ويني الحمد لله فرحت يا دمانشاد أيان وهالكن آدي آدو وسلامينا دمانتو توبيسناها إيو كرتوود بأيان كفر حسنها الحمد لله رب العالمين شوي دحبورنا آدي آدو أيو قيمة بدن يا شرف يا سوى ناكسن أيان شباب حورينتا أوغادينيا يا وسود ويني وأنا كفر حسنها الحمد لله shalay iyo maanta wali waxaa la sheegayaa in dadku ay soomanayeenba oo marka aad soo baxdeen bad soomanaydeen sababtoo waxa weyn xaafadihii aan dib ba loogu noqonin oo ilaa shalay aan la qadeenin oo malaayiin kharaa'iqa meesha isugu soo baxday adiguna waxaad leedahay qabanqaabayaasha maxaan ku ahaayey dadku inkastoo dadku ayna qabanqaabo u baahan iskaba soo baxayeen shucuurkiina maxaa daray الحمد لله رب العالمين مركي وتدو أي سوق بشيء وصوب حيث قبل كده دحبور هبين هراء ديار قروي أن كتيرنا شلا يوردن وضل أيان كوزويني سفر حتى يدماشات أيان سود ويني الحمد لله رب العالمين شعبنا آدي وفرح سيهاي سوى ناكسنا وأنا سود ويني وأنا كم عزنا وأنا يجنا مهد وحن سود جدنا نقول وين ونودا لتويان الحمد لله رب العالمين وأنت سوينا إثيوبيا أنا كجو أن قادنا يا ربنا كنكو. حوي بل هذه حل يلابو تحها نوجو شجع سيسو بكوا. الحمد لله رب العالمين كل يجابي جماعة قانو يجرار كهذنا ما ركتي واحد شراء واحد يهلا يعيل كأنان. مهمة وإلى خصوصنا إنه إن يريد أي كل حاجة تعاون مع بنبركي بعد ربه. إنه أسكري حتى كل بوليسية كملتري دورنا كداش لبودي وسولجري كتبت كينا إنه دورنا لبصوتها توسع أمام حار لبوكيني سولجري ما أنت أنا ما موقفه يا أسكرتنا وحنا كايودا السوق غير الآن ولا أنا ولا نجح في البنك ولا مرة تيا ريتاس ملتري يليو بوليسك عادي يقول لفته حديث فوق البيسون حالي عبسي إنهم كلا قبل إنه دقع بورسة عني وإن إنه هراء وبس أسي مرينه إن إنه قرارو نقولنا ما فحان تعالى هنا هذا الكيلو كسور قبل وحين نوباهنا هاي من نمديرنا هنا إنه هاتينه waxaynu u baahannahay adduunka cid aan urur iyo ummad iyo hogaamin matashalahayn mar hore uma socoto in aan ururkeenna garab istaagno xaqa aayakatasiga ummadda ogaaneynayana uu jeedka go-an yahay amnigeennuna uu yahay midaynaan u kala tegaynin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aadbaan idiin soconnaa idiin naxariisaynaynaa ilaa iyo ubux degan dadka Soomaaliyeed 5 meelood loo qaybiyay waa markaynu dhimanay ay taas jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeenaya waxay maanta diyaar u tahay ummadda Soomaaliyeed meelay joogto in midnimadeeda sharafkeeda iyo ruux walba Soomaaliyeed meesha uu joogo inuu qiimo ku yeesho ummadda Soomaaliyeedna value-geedii la soo celiyay jabhaddu diyaar u tahay idinkuna diyaar baad u tihiin qodobka labaad oo raba inaan ka hadlo waxaa weeye xaqa aayakatashiga ummadda Soomaalida Ogaadeenaya wax gorgortan gelaya ama jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeenaya ay ka labalabaynayso maaha الريحين يديكنا فريسة احترام إن شاء الله تعالى فريسة يديكنا هذا الريال waxaan jeclahay wax yar oo ka kooban inaan ilaado qorraxdu aad bay u kulushahay shucuurteennuna aad bay u kacsan tahay waxaan jeclahay inaan marka in yar hadalka ka idhaahdo kadibna aad idinku sarriftaan haddii ilaahay uu yidhaahdo marka koowaad waxaan ka hadlay midnimadeenna iyo say qaali u tahay waxaan jeclahay inaad xusuusataan marka layna qaybqaybiyey ayaa jira marka alxamdulilaahi rabbil caalamiin guusha ilaahayna siiyay haweenka hooyooyinka mas'uuliyiinta hadana wax qaban qaabinayay
shucuurkiina iga warmaantay dareenkayga shucuureed maanta lama cabiri karo sababtay tahay mugdi baan ku jirnay gudcur habeen aan joognay maantana waxaan dhawaadu noo bariyay markaa wabari baan joognaa shucuurtana dareenna wax la cabiri karo oo yani sheeko aad ku qaadan karto ma aha hadda dad badan oo khalaa'iq ayaa ka dhageysanaya LSTV iyo radio xuriyo oo laga dhageysto dalka Uganda iyo waliba dibadaba maxaad leedahay oo dadkaas maxaad ugu baaqaysaa siiba qurbaha iyo dadka kale waliba miyiga ka dhageysanaya ee taageersan jabada waddanka xorta Uganda jabada waddanka xorta Uganda mid baan ugu baaqayaa waxaan ugu baaqayaa hankoodii way hirgeliyeen way adkaysteen adkaysigoodii iyo dadnimadoodii iyo maxay ahayday midnaantood wixii ku soo gaadheen halkaas ilaa ay harka qabow noo seexdaan noo dhigaan maynan geed qabowla inoo duulaan mayna seexanin iyaga waxaan leeyahay waa guul baan noo dhalisay guulaysta kana ka soo wadaan leeyahay geesiyaasha jawhow guulaystayaalow rabbi haydin gargaare gobolkeena nabadiyo guushaynu gaadhne calayahow maxaan ciilanayo calayahow maxaan ciilanayo calayahow anigoon ku caasiin calayahow adakaagaga cabsaday calayahow gaga cabsaday calayahow geesiyaa habeeyo calayahow igu socod aqoone calayahow ilibtaadu waa hore calayahow ilaa iyo ubux degan dadka Soomaaliyeed 5 meelood loo qaybiyay waa markaynu dhimanay ay taas jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeenaya waxay maanta diyaar u tahay ummadda Soomaaliyeed meelay joogto in midnimadeeda sharafkeeda iyo ruux walba Soomaaliyeed meesha uu joogo inuu qiimo ku yeesho ummadda Soomaaliyeedna value-geedii la soo celiyay jabhaddu diyaar u tahay idinkuna diyaar baad u tihiin qodobka labaad oo raba inaan ka hadlo waxaa weeye xaqa aaya ka tashiga ummadda Soomaalida Ogaadeenaya wax gorgortan gelaya ama jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeenaya ay ka labalabaynayso maaha alla maxaan daraada dahabyahow alla maxaan daraada dahabyahow danabya aan ku waayo dahabyahow duni maxaa lagu rogay dahabyahow lagu rogay dahab alla maxaan daraada dahabyahow alla maxaan daraada dahabyahow danabya aan ku waayo dahabyahow maxaa duni lagu rogay dahabyahow danabya habeeyo dahabyahow ibu socda qoonno dahabyahow adna ku dadaale dahabyahow waligaa hanaga dumin dahabyahow nin kale alahoonoy jeexdiinu maa ogoli hoonoy jawxa mooye nin kale alahoonoy jawxinu maa ogoli lahoonoy ciidda iyo dadkaba alahoonoy caradiyo dad alahoonoy ciidda jawxa iskale alahoonoy caradiyo dadkaba alahoonoy ciidda jawxa iskale alahoonoy geesiyadii halgami alahoonoy halgami alahoonoy janna waa hubal dariskii gurana gunfurayay gurmadkii uu soo diray godooyay gobollada dhammaantood ka geegyay wandharkama sokeeyo u guuryay gudonnimo uu dererkii guulaysayey gudonnimo uu dererkii guulaysayey dariskii gurana gunfurayay gurmadkii uu soo diray godooyay gobollada dhammaantood ka geegyay wandharkama sokeeyo u guuryay gudonnimo uu dererkii guulaysayey gudonnimo uu dererkii
taliskii gurana ku furayay gobollada dhammaantood ka geeyay gurmadkii oo soo diray godoyay bandharkama sokeeyo u guuriyay gobonnimo u dirarkii guulaysayay gobonnimo u dirarkii guulaysayay akhyaarta hawada nagala socotay bal hadda intaasi aynu kaga gudubno shirkii maanta magaalada Dhagaxbuur ee xarunta gobolka Jarneed wafdiga Jawxa ay ku qabteen haatan aynu milicsano kaalmihii suugaanta iyo waliba hees cusub oo fanaanka Axmed Daahir uu u qaaday jabhada wadaniga xoreynta Ogaadeniya شجوحي الكجار دياي قبل هرديري قبل موتي قسي يا شجوحي الكجار دياي قبل هرديري قبل موتي وحي قبل شو طلع كيجن هوي قبل لا تلكينو قودها نصعبتمي قوشي يا حنفين وحي قبل شو طلع كيجن هوي قبل لا تلكينو قودها نصعبتمي وشي يا حنفين قيال إيا قيال با كيسياشة جوحو رسكو كين قباية قلب إيبا وإيان حسن ما انتقر النور ولا بيك الهدوية قيال إيا قيال با كيسياشة جوحو رسكو كين قباية قلب إيبا وإيان حتى ما انتقر النور ولا بيك الهدوية يوحشني وتاكو شعورتي من كربة دنقاريو ماشي شي قاسي قلت يوحشني وتاكو شعورتي من كربة دنقاريو ماشي شي قاسي بريو سمو برواقيو واحد نبض كوبتان وينو قال لي مانتي دعما هايس قصدو جدي يجي مصابتنا وريا سمو برواقيو
waxaad nabadda gobtaan waynu galnay maante gacmaha isqabsada gidigiinu saabtuna guulow allahayow nimo aynu gaadnay nimadana garansiiyey nimadana garansiiyey nimadana garansiiyey nimadana garansiiyey guulow allahayow nimo aynu gaadnay nimadana garansiiyey nimadana garansiiyey nimadana garansiiyey nimadana garansiiyey waa tahay akhyaarta hawada nagala socota ee barnaamijyadii cawaysnimo ee LSTV ayaynu bartanka kaga jiraa jeelka caanka ah ee loo yaqaan jeel ogaadeen oo muddadii 12 sano ahayd ee la soo dhaafay ay ka dhaceen gabood fallo bini aadanimada ka dhan ah sidoo kalena dad badan oo kor u dhaafaya 3,000 oo qof qiyaastii ay ku dhinteen ayaa waxa gabi ahaanba ridaha isugu laabay maamulka cusub ee madaxweyne Mustafa Cagjar qaar kamid ah dadkii jeelkaasi ka soo badbaaday oo haatan ku sugan guryahooda ayaa waxa booqday telefishinka dawladda deegaanka Soomaalida Ogaadeniya ee SRTV waxaana muuqaalo laga soo gudbiyay ay muujinayaan heerkii arxan darrada jeelkaasi dadkii lagu ciqaabay lagula dhaqmay shacabka ku dhaqan gudaha wadanka Ogaadeniya oo marnaba maskaxdooda aanay ka bixi doonin masiibadii ka dhacday jeelkaasi weyn ee jeel Ogaadeen ayaa waxaanu jecelahay bal hadda qayb yar oo kamid ah barnaamijkii telefishinkaasi uu duubay in aan idin la wadaagno waxaana dareenkooda muujinaya qaar kamid ah hooyooyinkii jeelkaasi muddada dheer ku jiray oo iyagu ku curyaamay jeelkaasi weyn ee jeel Ogaadeen kadib jirdil arxan darro ah oo ay u geysteen maleeshiyaadka iyo ciidamadii gumaysiga Itoobiya ee ay u xidhnaayeen muwaadiniintani dumarka u badan ee ciqaabta foosha xun loo geystay ee haatan iyagu ku ay lixaadkooda ayaa waxa ay sheegeen dhibaatooyinkii ka dhacay qayb kamid ah in ay tahay mid aan gabi ahaanba la wadaagi karin bulshada Soomaaliyeed dareenka muwaadiniintani ay muujinayaan oo ah mid wax weyn ka bedeli doona shakhsi kaste oo daawada ayaan jecelahay bal hadda inaan idinku duwo muuqaalkan ee daawasho wanaagsan Jarira walaalo ana waan jirnimba intuu jeelka nagu duray jirdil nagu sameeyo jalki nooga dhaartay jirdil nagu sameeyo jalki nooga dhaartay jarira walaalo ay jabini nacabke anigana jidii bixi naftu waxay jeclaydiyo jamadayda xooge dhibaatooyinkii la eegaysa horta kama sheekayn karo waqtigiinka ugu dambeysay suuqyada ay qaad doona marka saa la ay qabtay waxa la igu riday meel yar waardiga hoostiisa ah oo yar xiriir oo leed lahayn oo waxba lahayn oo albaab yar oo jalama la yiraahdo dadku jalama bid buu yaqaan guri yar midow oo leed lahayn oo meesha hadda u foosi baa iga dambeeyay baa la igu dhahaa marka dadku iga sheekeeyaan halkaas aan ku jiray waa mar gobolku soo dhaaweenka waa la qaadi jiray gidibka la soo dhex muqursin jiray runta waxba wax la qareemo fiina hadda kaada haday qabto barta aan ku siday isla ciyaalka waxa xidha xafaayad budkii iyo jirdilkii rafaadka man xanuunka ka qaaday xaga markaan sababtigii baa dhowr qalin baan galay ilaa imkan wax iska bedelay ma laha oo dhibaato ugu badan hadda heesta xanuunka weeyaan walaal dhibaatada la igeystay sida markii la dilay waa la qaaday god baa la igu riday yani god yaan ku jiray laba habeen iyo laba maalmood mas iyo abeesiyo wax ku jira aan garanayn Allah yaclam madow baa la igu dhaxay walkaan ku jiray waxaan ku dhahay iftiinkan ilaahay naga leeyahay indhahayga hilbiisa uga lalmaday nasiibada carabkiga soo dhacay kolkaan ma in weeg aan ugu dama garanayo marka hal saac iyo moosh saacad iyo wixii qabtiga dhacday ilaahay carabkii dib u celiyay neeftiina dib u celiyay laakiin faadhii dabishiisa ay iga galeysay oo aan moodayay neef sanbabkiisu banaaya ya saaqo faadhay u lahay waxay iga soo gaadhay waxaan yeeshay neerfaan yeeshay gacmahan
ayaan neerfa ku yeeshay inta aad u qaarka hore ah ee murquhu ku fadhiyaan ayaa dhibaatadaydu u badan tahay habeenkii markuu dhiigaygu qaboobo inta bini'aadamku jiifo waan kor fadhiyaa halkaas dhulka la dhigaa ma dhigi karayo gacantaas kaboobiya boonbala waxay noqonaysaa kaboobiya meed oo moodin inuu dhiigi ka dhamaado marka inuu ruux soo qaado meen kolba haduu dhiigaygu qaboobo aan ma soo qaadi karayo dhakhtarin badan baan meelahan kale warwareegay kolkii aan soo baxnayna mustabaqadii buu noo diiday cabdiilay noo diiday oo dhagax buur waa la iga diiday jigjiga waa la iga diiday marka deedna sharci baan waayay magaalo ka koreysa hadaan tagi lahaa dhakhtar u tagi lahaa jigjigana waa iska kaalmaati un mooyaan kolka intaan maanta aan dhakhtar galo dawada ay qoray dawada intaan afku hayana yar roonay baan moodi kolka ay dhamaatana halkii man kamiisaya xanuunki ana hadda xanuunkaas qaar hore ayaa igu daran jigdil waa la ii geystay waxa kamid inta jeelogaadan joogtay intaan jeelogaadan ku jiray baan curyaamay intaan jeelogaadan ku jiray baan curyaamay muddo yar oo badnaynba markaan jeelogaadan joogo 5 bilood ah yaan curyaamay curyaankaana waxa iigu wacnaa nafaqa darrada iyo dhibaatada meesha taale iyo naxdinta habaaqda gabdhaha maalin walba mareegta intii la sudhasa loogu warfinayo naxdintoodin baan maxay ahayd oo eersanaya iyo wiilasha meydka ee maalin walba la daldalahay xabsi daayin baan la yiri xabsigii baan tagnay xilliga cabdi baday ahayd waan tagnay cabdi baday de wuxuu dili karay wuxuu dili jiri karay wuxuu kasay gabadhu uga soo sheekayaan de saas baa jirta nolosha shaalku way kala laba komishinna waxaa jirtay naxariis lahaa oo xabsiga markaan joognay de aan maxaabiista waxba yeelaynin iyo kuwa halkan guriga u galay oo jidinkiiba ka jaray kuwa qol la agtaagnaa marka kan hadda ugu wanaagsanaa ee xilliga cabdi baday laga qaaday wiil jamaal dheere la yiraahdo iyaag la keenay wiilkaas islaam ku ah wax maxaabiis oo wax yeelay oo hadda dumar ahaan oo ka tabanayna oo ka tirsanayna ma aysan jirin de kolkaasna de qofku inaad iska dhaleecaysin ما في أنا وحنا وحي جينا اللي يراه عين سنة عذاب يربنا تبسي نلاش وكون يكو كل جبور يبيها ونقتر بيبا ونقتر واحد عضي المير وبيئة أو رواقي أو واحد قلقة صار بيئة لوه واحد عضي المير أو عرورة أو واحد دمية لوه واحد عضي الماء أثر بلوتر أرنت يقول الريد وحي هاي الماء أثر بلوتر ولا يرى قرفيد بعنا قرفيد كنا واحد ركتين ماذا هذا أنا هذا واحد مكشة كنا مشاكل يقول مطح marka qof arkay umba xaaladda garan kara mooyaan qofka kale oo dhan iska fiidku ma furin ba furima waxay gacanta soo loogu sameeyay qalqalifsano boorash laga sameeyay daani la weeyaan marka anaga dhibaatooyinkana soo maray wax laga sheekayn kara maynan hayn wax hadda laga tiro koobi karana maynan hayn ninku dilay oo ku dhargay waxba kuma yeelin baa anagu leh laakiin ninka halka ku istaagay ninka daran waa adduunyada taagan ma jirtaan leh dhacdooyinka maskaxdayda aan ka baxayn waxay tahay oo u badan gabadh waxaan hadda ilaa iyo hadda waxaan soo xusuustaa gabadh ayadoo ayaamaha la keenay intii naag la yidhi qiimee maxaabiista ka mid ahayd baa la yidhi naaya dula ka soo shaqee jaan inta ka soo jartayba intaa naaska afkiisa ayaa goosatay oy gabadhii sakaraad ahayd gabadha dhawaaqeed baan ilaa iyo hadda soo xusuustaa aad wallaahi u dhibaataysnay marka dad fara badan oo la dhibaateynayay oo meesha joogay baa tifka ahaa dhibaato fara badan baa meesha nalagu mariyey eegis alxamdulilah rabbil caalamiin waxaan ahaynba waan ka soo baxnay layr baan u soo baxnay hadda curiyaan baan ma kor baan u istaagi karin cadada aan iloobin marnaba aan weliga xitaa aan salaadaha ay dhexgasho waxa weeyaan gudi baa laga dhexdhisay meesha la dhahaa jeelka gabdhaha waxa la jira gabdhaha saxan gabadha waxa yahay dhiglaana iyo xanuunsanas iyo taagnaan karin baa gabadha waxa la isma saxada weeyaan heblaayo bis waxa lagu qaxayn markii suuliyar waa shaawar booha dadku jirka ku maydho halkaas baa lagu taagi maanta dhan oo maxay aad taagnaani ama laba habeen ama saddex habeen ama shan habeen ama bil oo shan habeen meelaha intii aanu markaan arkay baa gabdhahan gudida ee maxaabiista kula midka baa ku kaashan askarta waxa heblaayo waa isma saxada waan karweyn halkaas lagu eriyay marka waa suuli weeyaan wad garansan suuli yaro maxay shaawar oo lagu madho intuu leegay saas u taagnaa marka ma dhex saaxan karto dasaw saaxata kuma leeka wayna qotontidooda saade u taagnaa waxa fiicnaa inaga meesha tagna inta xaasta gabdhiba galiy gabadhan xalimo shaqaale baa kamid ah xilliga aan taagnaa marka maxay ahayd wallahi meel de laga sheekayn kara meesha nolosha jeelka walaal macaan anigu maxaan ku dhahay muddadan ku jiray anigu 10 sano ku jiray nolosha jeelku nolol adag waxa iigu daray ilmaha maxaan ku dhahay 4 bilood jira ee maxaan ku dhahay caruur 277 ilmood oo caruur ayaa ku dhalatay jeelka oo joogtay caruurta maxaan ku dhahay beekii casriinaha bahalka la dhaho oo bigays iyo bahal dheeyeen la yiraahdo qarfiid oo xabad ay islaanta iyo ilmaha la isku siin ma islaanta baa cuni mise ilmihii bay siin caruur nolosha jeelka de
waxaan ku dhahay cadaab aakhira maanaan arag kutubaha laga sheekaynsa waan ka dhageystay balse laakiin dhibaato adduun dee wax loo dhaafaa ma laha horta codka kooban uu diray wuxuu yahay maadaama oo si qasaba cay leeyoon caayay hadda ka hor horta marka hore saaniga hay cafiyaan la marka kooban cafis baa ka dalbanaya sababta waan caay markii jaalka aan ka soo baxeen soo way ka imid ya Facebook waxa dhibaatooyinka soo dhigay Cabdirashiid Cali Shaaca isla markii waxa la iiso dhacay maxay daaqada waxa adu masaxanta tay waliga waad maleeqnayd halkaaga waa garanaysaa madaan caayin waa lagu xidhi oo adu aw xidhish waa lagu dayba hada tayasir soo in la dabay ma arkin ha waa lagu dabay inta la dawa caayamaan burush xarra marnaa baan ku iri marka labadani waa caayay horta hay cafiyaan marka koobaad Mustafa waxaan ka codsanayaa ilaahay baa wax laga codsaday Mustafa se waxaan weydiisanay maadaama madaxweynaha nagii uu yahay dadka dhibaataysan ee jeelowdaadeen ku qorjajumay sida aniga oo kaliya gabdhahan hadda ila joogiyo inta maqanba ah gabdhaha hadda waxaa jira magaalada Qabridaar hilba shabeelkoodu kala xiran yihiin intisaal labadooda lagu mid bageed lagu xiray bac lagu dhibciyay baa jooga oo aan talaabo aan tayru roog karin dadka noocaasa wuxuu qaban karaa inuu qabtaan marka labaad waxaan ka codsanayaa diilaan ma wixii awoodiisa aniga iyo inta kale la midkaaba bal dhakhtar in maxay naloo raadiyo xukuumadda ka codsanayaa diilaan ma maadsantii جريرة والله لو أنا وأنت نهمبا إنتو جيلكنا وقوري جردنا وسميو جلكنا وقدارتي جريرة والله لو أنا وأنت نهمبا إنتو جيلكنا وقوري جردنا وسميو جلكنا وقدارتي جريرة والله لو أي جبن النعبكي أنا جدي بني نفتو واحد عليديو جمهدي ذا حوغي waa tahay bal hadda hadii aynu intaasi kaga gudubno muuqaalkii dareenka xanuunka badan xambaarsanaa tuulada malqaqa ee gobolka faafan ee wadanka Ogaadeeniyana waxa dhawaana shir ballaaran ku qabtay mas'uuliyiin ka wada tirsan ciidamada qalabka sida ee jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya gaar ahaan taliyaha qaybta gorgor shaalaqaha xukuumadda ciidanka liyu booliska ee aaga degmada Galaalshe iyo gudoomiyaha tuulada malqaqa shirkani ayaa dhammaanba muwaadiniintaasi waxa ay kaga hadleen sida ay lama huraanka u tahay in shacabka Soomaalida Ogaadeniya ee muddada dheer dhibaatada gumaysigu uu dhexdooda dhigay inay iska iloobaan wixii horey u soo dhacay haatana ay mideeyaan cududooda si ay meel uga soo wada jeesadaan guud ahaanba cadawga shacabka Soomaalida Ogaadeniya khudbadahani miisaan kale ay jeediyeen taliyayaasha ciidanka liyu booliska ee aaga degmada Galaalshe iyo taliyaha qaybta gorgore ee ciidamada qalabka sida ee jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya ayaan jeclahay haatan inaan idinku duwo waxaana shirka furaya gudoomiyaha tuulada malqaqa
horta waxaan salaamayaa mas'uuliyiinta waxa weeyaan sharafta leh macnaha shirka waxa weeye mas'uuliyiinta golaha dhexe ka socda marka mas'uuliyiintaasi waxay noo sheegaan baan ka dhageysanaynaa waxa weeye iyagu la jira waxa weeye warbixintii iyo macnaha wax sheega bulshada markaas wixii macnaha su'aal ay tagaan soo leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بعض ما تنتهي وحان ربنا إن كسر دوينه تليها إذا قيب تقرر إجابة ودين حرين توجدينيا نفتيهورة قريرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر سومالي همدود سومالي همدود سومالي ذا حرود سومالي ذا حرود وميسوا هذا وميسوا هذا وميسوا هذا بالله التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال ومهسنتهين سيدا شرفت له شركة أسوى باب الشين للسجون نمت أيان السلام يا سلام كبعد وحن كفرنا إن شركنا آياتها قرآن كأن هذا أخريني وما يلبضن تابان هيا الله كعبسك إن أمر هيا يوحي وفر بدنك لبا إن أمر هيا الله سبحانه وتعالى القرآن كيس كريم ككل ينتدك مسلمين تا إلهي الرسول كيس الرمية مركز هذا لسان هذا الوناكسن أو صواب له هذا كهل هذا الكاسم حوك الدوية يصلح لكم أعمالكم عمليالكين وناكين ويغفر لكم ذنوبكم ذنبيالكين نوضاف وإلهي بذنبيالكين نضاف محانا سبب النقضي هذا الكوناكسن قف كان أوكهل ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قفك إلهي الرسول أن نك إلهي الرسول كيسة تلذوذ إيا هذا الكيسة يالا والليباني الليبان وين بو الليباني ليبان يرماها والليبان آد إيا آد وين يقف كاس الليباني مركا الله سبحانه وتعالى آيات قرآن وكلا استقى أمدها لما انتظ أمده جري أمان قارا إنجسي أيا وحير كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر أمدها وحاتين أمد النبي محمد أيا أمانتا أي إلهي كخصص محاتين أمدها أمدي أغو خير بدني ومحات كنا قرتين وناق نواد سامرتان حمانتا نواد اسكرتان marka koow dadka muslimiinta waa in ay waxa xun iska reebaan waxa wanaagsanna is amraan waxa xun waxa kamid ah qofku inuu noqdo qof qaadic rixma oo riximkiisa goynaya salaadana aan tukan soomkana aan soomayn zakadana aan bixinaynin bilcagsi waa inuu noqdo qof qaraabadiisa xiriirinaya salaadana tukanaya soomkana soomaya zakadana bixinaya amarka ilaahay siiyay inuu fulinayo waxa la yaalo wuxuu ilaahay ka reebana inuu ka harsan yahay ونقضى امتثال أوامره واجتناب النواهيه وحل يالو وحو إلهي أمري إن أفليو وحل يالو وحو كرهبنا إنو كهر سنادو هو حاسو دردار منا عبسيد الربي ميركستو انشوغنو إلى إلهي كعبسنو انتاس انتا مركان كقدمنو وحانسو شيغينا أفر قضب أو قوبا قضب كأوهر ريو وحان إنا ندي شيغنا دونينا كو gobolkan khariiradan Soomaalidu ku nooshahay ummadda ku jirta oo dhan dhamaanteed maanta inay tahay ummad walaalo ah oo koow ciidanka loo yaqaan new booliska ciidanka maleeshiyaadka ciidanka arbaabatayaaga yani iyo ciidanka jamhadu dhammaan inay hal mid yihiin nadwanteeda lahaataan
وقضب كوباد الندي شيء إن أي هل مبدأليين هل يلا توجن هيان هكزت كودي تاركت كودنا هل ميلية اسمقل إيو موافقنا يكون السعودان أي عدو ودنا قربها وحال لي لو وحي عدو كوهنا إنه عدو إيهي وحي الناس وحنا وناس إيهي قضب كوباد وقضب كاس قضب كلابada كلين إذا شيء وحويان أمة الصوماليات خريرتهم كجرته waxay soo martay dhibaatooyin badan ka dhaca ka deg fara badan wax alliyaalo wixii la soo marayna qof waliba inuu dhabarkiisa ka tuuro oo noqono daraxna min waraa'i dhuhurina inaan dhabaryaalkeena gadaashooda ka tuuro oo afkis iyo saamax aan ka bixino qof waliba qofka kale uu cafiyo uu saamaxo qodobka labaad يعني وحويان أريد شيء إثيوبيا من نشيل من هذا لكن وحاجر وحيابه هذا الله ينور الصعداء وحا عن هذا عن هشيس كأن أنت كنت له هذا يسألان سقف قرنه أوكي لكن هذا سقف قرنه إنه عدو غيرني يهي عدو أرميا إلى دوان كذا الهاتان وسان سجد فعلا فلو كذا قالوا أرمى أو وحكر كسرنين دون يسوي أرمى تطبع ساير دل ما يسوي ودونيسا inay dalkeena ay baari iyo qabsasho ka sameeyso meesha ay sheeganayso waa ijiwaaji dhagax bursad aan qabdidaar saddex qabalee baa u dhaxeeya halka ay tooganayso waa halka ay ku socoto taana inaad ogaanteeda lahaataan oo qof walba ogaatid inuu cadawgaagu yahay oramiya cidi la socoto qodobka saddexaadna waa qodobka walaalayaal hadda waxa weeyaan waxaan isku tartaarmaynaa kul iyo gobonnimo iyo muwaafaqo inaynu yeelano ayna waxa shalay soo maray inaan dib u dhowrine aan horay uga soconno oo maxaa maanta yaala oo qorsheenu noqdo oo halka ka higsan targetkeen ogaanteedana waxa la hadanaysaan ummad cabsatay waxba ma qabsato halna qabsada oo geesigu ma badhinto ama raga ahaada ama dumar ha ahaade laakiin qofka fuliga ama ragaada ama dumar ahaade durba wuu dhintaa maxaa u daliil ah qabas meel fog ma kan ka soo qabsano نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه أصحابتي سيكسيته إلا ما أنت ما ينقدم نوم إيه من محاول دليله خف البوية قلنا وتاريخني في عنيد يجيس النمذي السمايين أحمد قري كسر حجسي عروت النبي أنا قانون مجرو سيد محمد عبد الله حسن كسر حجسي قف أنا قانون مجرو وجيس النمذي يشرف يا السمايين لكن فلية ننا تاريخني سحس مصر ما أنا كان نفسك بحضن بحالك أقول ضمبين وحصوا هذا القاضي أركب مصر وقانت هذا لهذا دبجيس وبين المؤمنين قف لوبنا هذا أدي الجرودد شرفها هي عزة هي كرامة إلهي النسية إن الدفاع عنه شرفت إلهي النسية وحكمله كو طب مسلمين عنه وشرفه وقبر لبا أمد عرفات بيننا وأصل كان هو عرب إنه كبيرنا عقيل بن أبي طالب والنبي عليه صلوات الله وسلامه عليه أيه مكبرنا إلهي جيس النميذج طبعا قضب بحياة سجال قضب عرب بوسي نحن عربيون مركا إنكو هذا عرب بيننا كم من هاي سجال كي قضب جيس النميذج هبوانا يصنع هل كقضب صار هذا أمتك اللي قيبين مركا جيس النميذج إنكو نوع عكا شرفنا أمتنا عرب مسلمين إن أي نضد لها كسر أرضه الروفة ولا كبلا أنه كعب صنو والروف نمو عذا وجينا إن الإنسان سيد دفاعي لهين إن قفلوا بالنية قشوا قف كي عبصدنا يقول جاري بمهيبة قفلوا بنا كنت لقل عدو ما أنت لان هاي أرمنيا أبي أحمد وجامين هيو ثاني سيد فعلنا في الوجه كله وكان كذا قضب كأفراد وكل كي جاي بودي مدحوين إنه لنا شل مدحوين الله هين مدحوينه هني ده واحد بدن أو وناقو سميه لكن دولة إثيوبيا قفصتي دستي بعد ما بنقصوا نقدح قادتي إنكم أنكهر سنين إلا أي هذا أو إلهي نجسوا دايين أنكر رجينين وهذا وقان تلاقي هذا ما أنت مصطفى عكشر بام مدحوينه إنه تاجن وإن إنه قرب يقاشان إنه قرب يستاجن كو وحو حميين أنكتوا سنو وحو فعنيين أنو كتهنيين لكن إن النادين مدحان ما من النادين صومالي معارض بالله الرعي وحبينا المعارض ومدحوينه إني أشرف له ساعة إنه قرب يستاجنوا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله شيء هلك عدلوه
بسم الله الرحمن الرحيم إلهي إنك يا أمنا نبي محمدنا وسلم كل الحمد لله رب العالمين إلهي ذا ما هذا أسكره شلي وأرجسين وحا هذا يقدقنا وهررينا لقما اللي تاس وصودا فنا وتنقص البحنا بعد وحين نقص البحنا بعد وايو وحيس لنا هي كل هذا إنه وحين نسكدي إنه رج مرتاح عدو لا تقالماي تايون عدو من لا تقالمني إنه عدو من لا تقالمني رج إنه بس ليني أريم يا كهذي بهستا كيس إذا إنه كلا يا هستا مركا وحين لين هنا رجعني بوا وحين لين هينا رجودهم بوا ولا لين ولا اللي سكجون بهنا وحين لفال قرعي اللي سكجبيه ساس بين ناسيتي إيجنا الحمد لله رب العالمين ما أنت واحد قرب كسرت حاجني الله إنه زيادية وهو لا لهن وارجعني وارجينا لا شيء رج مالك لك يمنا ما أوري مالك يمنا أدرك لك يمنا وارجع يدرو الشيء لهذا بل تقول سنة أنا تام بهيت واحد نسكلين إن عدو وهي مقلب بيوتهم الله بيوتي الله بانكوتي مقلب بانكوتي منك ما وذني أحمقني ما فينا وان كاي البحني مية وانا عرقني ما ما تعطينا تاسد عنا سمينا أني ما عندنا مركز تاس وسداسة وحاوي ماتا وارتن عبد محمد عمر نكاي توبيا السنة مجري توبيان بوها تي توبيان ولي بهده أسوق سير رعي هذا هو كارتان وكارتان ماتا دل كأننا ماتا أبي أحمد واكيه هذا وحكسه تاريخ يسوق هذا وحاسب عيال يرى كونا نوكلا وكذا مسؤول كنو شيء وجواجي إلا قرش قط أيلا ما نلد وطنك عندنا عسكري وايو واساد اللي نو شيء أورمان هذا الذي شيء والصومالي أورمية تاي صومالي والصومالي صومالي ده إنه مرتا أورمودي ويدي والصومالي قلبت إنه وحنا نسيلين وليات بين مهل وحنا إنه صومالي هذا إنه إحنا نسيل وليات بين وجعين صارت تاي عدو من دور كهنا عدو ما سوتشي ذنا معارض ما كل بيننا اسكو كان قراعون عيال كركا دبشواحي جرو كله horta saamaxnaakum yaa muslimiin maantana ma aha maartay hebel iyo maxay yaa nuslaynay ma aha waynu saamaxaynaa waa walaalaheenoo inoo yimid waa raggii aynu had kaydamana geedkaa la gaari jirin dee ayaguna waa kuwana ciyaalkooda geedkaa degan maynan u ima jirin maantana oo kaasoo garabkaynu saysanaa hal mid aynu nahay far baynu nahay عدو بيننا هاي اسكو عدو بيننا هاي عدو هل عدو بين ما تلاقي هذا كورسه وايو اي باب ترى كلي اي كل اسبوع اللي نقولته هذا إنك بس سيسنا حين نسكعلن مركا ما أنت الحمد لله رب العالمين إنك هل عدو له وجيس كسي وذا جدنا يا هرت الحمد لله رب العالمين وإلهي وايو هذا وحكلون هذا يقصينا أنا مجري إلهي إنتي ما أرتاح باقي هاي سو كان نبت كلمة ما حد عسكله يا مركب وحوي وولا لهن وقرب كني وقاشان كني وقعنتني مد يا الله بليايو الله بليايو الحمد لله رب العالمين إلهي أنا ما حد عسكله
hawada nagala socotay barnaamijyadii kala duwanaa ee Ilaysa TV caweysnimadan caawa ah oo idinku talagalay intaas ayaan ku soo afjaraynaa tan iyo barnaamijyada xiga intaan isugu imaanayno fi amaanillah.